maxamed cabdullaahi farmaajo sadaqa ma la siin karaa diintusa maxay ka qabtaa wallaahi billaahi tallaahi lacag aad maxamed cabdullaahi farmaajo aad siiso naar baad ku gelaysaa hadal ka dulmi badan adduunyo intaan joogay hadal ka jariimo badan maana arag maxamed cabdullaahi farmaajo guri loo dhisaa shacabka Soomaaliyeed lacag baa laga aruurinaya lama oran masaakiin baa lagu caawinaya lama oran dadkii soo qaxay oo waxa weeye abaaruhu ka soo qaxay oo dhibaatadu ka soo qaxay oo xoolihii ka baaba'een dadkaas dib u dejin loogu sameynayna lama dhihin adduunka ilaahay lacag keena akoomaan u samaysanayna maxamed cabdullaahi farmaajo guri loogu dhisaa hadal ka jariimo badan adduunyada intaan ku noolahay ma maqal hadal aan ka naxo geeri marka laga soo tago waa hadalka ka soo yeeray dadka qaar oo oranaya maxamed cabdullaahi farmaajo guri loo dhisaya ayadoo ay jirto abaar lagu xoolo beelay naf iyo maal intaba lagu waayay ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha meesha laga geli lahaa baa la iska rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha waxa uu ku weydiinayaa maalka meesha aad ka keentay iyo meesha aad ku bixisay maxamed cabdullaahi farmaajo Soomahan madaxweynihii 5 sano wadanka xukumayay yaa loo sheegayaa madaxweyne Afrikaan xoolo dadweyne dhicin maxamed cabdullaahi farmaajo Soomahan ninkii doorashada 2016 lacagtii la ogaa qadar inta laga keenay xildhibaanada loogu iibiyay oo madaxweyne looga dhigay maxamed cabdullaahi farmaajo Soomahan shakhsiga haddeertan doorashadii ugu dambeysay oo looga guuleystay على حلبان $100,000 lagu kala iibsanay soo ninkii 110 cod helay Soomaa xaquu lacagta ka keena maxamed cabdullaahi farmaajo Soomahan madaxweynenimada kadib ninka mushaar u heli doona $400,000 sanadkii 5 sano oo uusan madaxweynaha ahayn $2 milyan weeye mushaarkiisu ilaahay ma ka yeela ninkaasan guri u dhisay ayadoo ay jiraan dad masaakiina oo gaajo u dhimanaya oo awlaadoodii oo naf baxaya ka soo tagay oo geedaha mayraxda ah iyo geed talaalka mirihiisa biyo ku kaboonaya gaajo dartood ilaahay ma ka yeela ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha hortiisa laga dhaqaaqi mahayo ayadoo aadan ka jawaabin maalka meesha aad ka keentay meesha aad ku bixisay wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني مالك بحية انت اوسن موتكو إذن أصيبين بو إلهي سبحانه وتعالى ليه يالا سينا مالكاس ما محمد عبد الله فرماجة الله سينا هيا ولا ليالو وحيابها أتكون رغميسان أو أهل ليدين كشيغو إيه إيده هذا أقاد عذاب باللغو قلهيا إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون آياتكيغا مينا نهين كوا الذي كدوا الأقريو إذكنا أبينسان قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم الضالين إله وحن نقتن بديه الدنيا دينا باضبانا النقرني يا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إله ما أنت النار تنقصار هدان الله وأن أننا ظالمين إلهي محوكو جوابيا إلا النار بعد أسعطاية قف محمد عبد الله فرماجو قولي أدس هيا مساكينتي أيوه قاچون أركا هيا رحم كيسين أي باهيين نين مليونيرة لعكو بحين هيا محو إلهي سبحانه وتعالى كوكو جوابي دونا متغان اخسأوا فيها ولا تكلمون نار تقل مردن بنا هاي لهالي ما حميلي كرتا مساكينتي أو أن لقوضين وحاكا دلان هيا عذاب سقراء dadka galahaya waxa kamida dadka masaakiinta aan qoodin ba kamida rixim ka baahan oo qaraabada ah oo xigtada ah ninka aan qoodin weeye ninka saqara laga helaya maalinka qiyaamo allahumma najina marka leeyahay saqara maxaa idin galiyay maxay leeyihiin ma salakakum fi saqar war maxaa saqara idin galiyay qaalu lam nakum min al musallin wa lam nakun nud'imu al miskin وكنا نخوض مع الخائضين ولم نكو نطعم المسكين ما ننهين كوا مساكين تقوضية آياتك إلهي أو مانول بلين كدو الأقرين هايوه هكاد دورانينا قبيالد هكاد دورانينا ننشعليسي هكاد دورانينا هبل بان جعلهاي استوستوسك إيا الرياء دين إسلام كدافة
farmaajaan guri u dhisayaa wallaahi waa istihzaa lidiini illaah waa wallaah masaakiinta baahan oo riximkaaga kuugu dhow ay ka mid yihiin iyo kuwa abaaruhu ay saameeyeen oo gaajada darteed wax waliba uu xalaasha u yahay dadkaas adoo arkaya farmaaja guri u dhisaya istihzaa lidiini illaahi waay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun qur'aanka ilaahay jeesjeeska ka dhaafa ilaahay kalaamkiisa jeesjeeska ka dhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala diinka wuxuu noogu soo dejiyey inaan sida ay tahay aan ugu dhaqanno masaakiinta inaan quudinaa nala amray munaafaqa inaanan xoola siin baa nala amray nin taajira inaanan xoola siin baa nala amray nin miskiina oo baahan oo dabku ka seexsan yahay inaan garab istaagnaa nala amray inta ka gudubnay baan farmaajaan guri u dhisaynaa toxob wallaahi naar baad ku gelaysaa billaahi naar baad ku gelaysaa tollaahi naar baad ku gelaysaa yaa ii keeni kara wadaadka oran kara maxamed cabdullaahi farmaajo oo taajir ah lacag baa la siin karaa ninka ila imaan karaa waa ninka ii keena ninkaas aniga hala ii keeno ilaa dadka anaa ugu cilmi yare hala ii keeno nin taajiraa lacag la siinaa miskiinkiina waa baahan yahay gaajuu meel kula duuduuban yahay bal qofka oran kara ama wadaadka dhihi kara aniga hala ii keena abwaan xarragaa diinka ilaahay ha laga run sheego wallaahi haddii kale waxaad noqonaysaan dadka maalinka qiyaamaha uu jahannamo shaydaan ugu hor qudbayn doono wa qaala ashaydaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadukum wacdu lxaq oo wacadtukum hay aayadda wuxuu kusoo gabagabaynayaa khudbada shaydaan falaa taluumuunii waluumuu anfusakum aniga aya eedinina idinka is eeda idinka ay raacay anigu waa idin yeeray ilaahayna wuu idin yeeray yeeritaankaygaad raacdeen kii ilaahayna waad ka tagteen dad yahow ilaahay u towbad keena maxamed cabdullaahi farmaajo sadaqa kuma kacdo asagaa la rabay dadka inuu gacan qabto asagaa la rabay dadka inuu ugu baaqa masaakiinta in la caawiyo asagaa la rabay jeebkiisu inuu ka soo jaro asagaa la rabay mushaaraadkiisa inuu u daayo asagaa la rabay dadka inuu ugu yabooho dadka masaakiinta ah kuwa wax haysta guri ha la ii dhiso subxaanaka yaa cadiim mashruucii ahaa masaakiinta ha la caawiyo buu mashruuc kale ka ag sameeyey weligay ninka arxan daran ma arag waa kaasaa ninka madaxweyne 5 sano noo ahaa arxan darra halkaa ka gaaray ilaahay u towbad keena maanta muuqaalkayga markaad maqasho kadib haddaad akoonka maxamed cabdullaahi farmaajo aad $1 ku riddo ahlu naar baa tahay cadaabul qabrina u diyaar garow biidni illaahi albaari waa walaalkiin abwaan xarragoo idinle assalaamu calaykum